إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر، الله 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 أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل هنا نام بين الأنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشائخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، آمين آمين آمين. أما بعد، أيها السادة الأعزاء، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. وبعد، ولا ليال وبرنامج كيني سعي آخره وحلقة أفر إيا الطبنات أيين مرنا عاوة. waa barnaamijkii orientationka ahaa ee nafsadayda iyo nafsadiinuba ay madrasadu ugu samaynaysay orientationka, oo ay ku tusaysay muuqaalada inoo dambeeyay aynu arki doono sida uu caalamka isu bedeli doono maalinka qiyaamaha ah iyo waxyaabaha hawlka ah ee inaga horeeya oo ay la iman doonto maalinta qiyaamaha ah. inaynu u shaqaysano ayay madrasadu inugu tirtirsiinaysaa intaynu joogno adduunka oo aynan ka tegin. walaalayaal, rasuulkeena xabiibka sala allahu calayhi wasalam waagii uu joogay maka ee magaalada maka la furtay sanadii 8aad, fatxu maka, maalmihii yaraa ee uu joogay halkaa ayaa waxaa dhacday dhacdo cajiib ah. gabar reer makhzuumi ah ayaa waxaday. markay waxaday waa la qabtay, waxaa loo geeyey imaamkii cadaaladda, rasuulkaa loo geeyey in xad laga oofiyo. waxaa ogaaday reerkeedii reer makhzuumi, waxay ku degdegeen oo ay ku argagaxeen usaama ibni zayd, oo ay yidhaaheen ninkaasaa ugu dhow rasuulka oo uu jecel yahay, isaga unbaa maanta idinkaga ergeyn karaaya oo idinkaga soo furi karaaya gabadha si loo cafiyo. usaamay u tageen. waa maalmuhu qaangaaray weeyaan, waa inan yar. rasuulkana uu jecel yahay sala allahu calayhi wasalam, wuxuu u jeclaaday fariidnimadiisa iyo qalbi wanaagiisa iyo caqiidadiisa, diin jacaylkiisa. markaasay wuu raacay isagoo erga ah. rasuulkiibu u tegay, arrinkiibu u sheegay. qoladaana i wadda in gabadha la cafiyaan rabaa rasuul allow. aad buu runtii u xanaaqay rasuulku. wuxuu yidhi, ma waxaad iigu imanaysaa usaamow oo aad igu haysataa ya xad min xuduud illaah, arrin xadadka ilaahay ka mid ah oo aniga xataa aanan cafin karin. ilaahw cafiye maahee miyaad igu haysataa? maalintii dambe ayuu wuxuu fuulay dadki intuu isugu yeeray masaajidkii mimbarkiibuu fuulay sala allahu calayhi wasalam. arrin khatartiisa leh weeyaan. waxaanu arkaynay bay leeyihin markuu usaame ka ergeeyey gabadhaa waxaday, wejiga rasuulku markiiba wuu isbedelay, guduud buu noqday wejigiisii. halkaasaa waxaa ka muuqan jiray xidid oo buuxsami jiray, yani isbuufin jiray. markiiba way naxeen. mimbarka markuu fuulay maalinkii xigay ayuu wuxuu yidhi, ayuha nnaas, dadkiiba u digayaa, ayuha nnaas inamaa ahlaka aladiina qablakum
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam dad yahow dadkii idinka horreeyey waa yuhuud iyo nasaara dadkii idinka horreeyey ilaahay waa halaagay wuxuu ku halaagay kooda shariifka ah boqorka ah maalqabeenka ah laandheeraha ah nasabka fiican ama quruxda badan kooda la jecel yahay dadku qalbigiisu ku weyn yahay kaa hadduu waxada shariifka ah waa la dayn jiray waa la asturi jiray waa la cafin jiray lama taabtaan buu ahaa haddii midka miskiinka ah gunta ah xaggeena 4.5 ka ah oo maaragtay aanu yasno ama faqiirka ah nakiraha ah aanan muuqanin bulshada ka dhex muuqanin ee aanan tol weyn lahayn aanan dabaabadii ciidamo ku hareeraysanin ama rag murqo waaweyn aanay ka dambaynin ninka isaga hadduu waxadana aqaamuu calayhi alxad xad bay ka oofin jireen adduunka oo dhan baa istaagi jiray markaasaa la dhihi jiray allah ma maqasheen waxa la war ma aragtay ninka la soo qabtay ninka xaday bangiga ma aragtay ninka wax dilay ma aragtay ninka waxa dhacay ma aragtay kii meesha lagu qabtay kii bamka qarxiyay ma aragtay allah waa kan oo dadkii oo dhan baa loo soo shirinayaa dawladii markaas xiniyaheedii la soo baxaysaa maanta waxaanu soo qabanay nin dambiila ah ninkii bulshadu ka harsan weyday ninkii bulshada argagixin jiray kii laga seexan waayay kii laga socon waay kii laga shaqaysan waay kii baanu soo qabanay waa miskiinkan daciifka ah ha xado laakiin keligii wax ma xadin dadka la waxaday aaway dadkii waxaday dadkii bangiyada dhacay aaway dadkii macaawinada leexsaday aaway dadka masaakiinta xoolahoodii dhacay aaway dadka boosaskoodii dhacay kii beeraha dadka dhacay kii aaway wasaaradaha afgembiyey kii aaway ma aragtayay lacagihii dadka loogu talagalay kii leexsaday aaway kii shidaalka dhacay aaway kii baabuurtii qaatay aaway kii sida runta ah dadku uga nasan waayeen dadka soo qaxiyey dadka rucbi ku haya dadku ka seexan waayeen aaway kii agoontimeeyey ilmaha yaryarka ah ee muqdisho ku batay maanta meel ay tagaana la aaway dadka aabbayaalkood dilay aaway dadkii hooyooyinka garooba ka dhigay aaway dadka culimada ka baxsan la yihiin ee maalin walba culimadii gowracaya dadka wax qarxinaya aaway dadka mooriyaanta isbaarooyinka dhiganaya war ideelkoo soo guryaheena kama soo kacaan soo hooyooyinkeena kama soo hoos kacaan soo lama yaqaano soo dariskeena ma aha soo kuwan la wada yaqaana ma aha ma la soo qabto dadka si cadaalad ah ma loo wada dhaqo dadka ma si siman oo ekaansho ah ma dadka loo wada dhaqo aaway kii dadku ay ka seexan waayeen kii laga harsan waayey kay dawladdu ka kici weyday kii baanu soo qabanay aqaamuu calayhi alxad xadka laga oofinaya waxan waa wixii lagu halaagay fiiri muxuu ku bilaabay xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam إنما أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ويكتغي جيرين كان شريف كدو واحد مسكين كان حتى لقوا في نايا وأمضيه هوري markay cadaaladii ka leexdeen oo ay u kala qaadeen laandheere iyo laangaab ay u kala qaadeen midgaan iyo nasab ay u kala qaadeen 4.5 ay meeshii keeneen oo waliba xadkiina ardul waaqic si ficil ah wixii loo fuliyay oo dadkii la kala sarmariyay ilaahay waa xaaqay ideelkood waa xaaqay wuu burburiyay wuu baabiyay ilaahay wax biyo lagu halaago wax lagu qayliyo wax dhulka lala gooyo ayaa laga wada dhigay ideelkood iyo wax dabeel lagu furo ayaa la maaragtay oo ay halaagtay ayaa laga wada dhigay annagana wuu inoo digaya xabiibka sallallahu alayhi wasallam annaga laakiin sidaas la inoo halaagi maayay ogow waa maro horta wadadoodii baan haynaa maanta wadadoodii baan ku taagannahay oo waxa dhacaya adduunka dushiisa ka dhacaya ummadda Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa ay maanta dhulka korkiisa ku sameynaysaa waa wixii lagu halaagay ummadii hore
marka sidoodii oo kale laynoo halaagi maayo laakiin in yar baa laynoo qabanayaa ogow ya inagoo waliba aynan ogeen imisa la qabtay imisa zaalim baa ilaahay ka aarsaday 23 sano waxaan dadka wadankii uu ka degi waayay culimadii baabiiyay masaakiintii baabiiyay agoomo ka dhigay dadkii hooyooyinkii garoobo ka dhigay dadkii qixiyay wadankeeni qaniga aha baabiiyay hay oo saxaro ka dhigay dhulkii dadka ayaga aaway xageed ku ogsoontiin dadkii ugu horeeyay qoriga qaaday sida dulmigahan ku qaaday maanta ma noolo wixii yara ee soo harayna waa silc bay ku nool yihiin iyo xaala nafsiya ay ku nool yihiin haddaana ilaahay u soo laaban oo aanay ka toobad keenin xaq lagu leeyahay adduunkan ayan gudin wallahi iyagana aakhiro waxa u dambeynaysa sida aynu ma caaw sheegi doona u dambeynaysa war ilaahay aynu u soo noqono adoomo daciif ayaan nahay wa khuliqa al-insaanu daciifan daciif baynu nahay war ilaahay aynu ka baqno walaalayaal kibirka aynu joojino ninka kibirka badan xalay wad maqlaysa iyo habeen hore wad maqlaysa halka u dambeysay walaalayaal rasuulku markuu sida yiri wuxuu yiri wa أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها عدالة ماشي وقدام بيسي شرف ماشي وقدام بيي يا إسلام كواكسا ولا ليال أين لا نهي إلهي ونوغر على نقضي إلهي مجعيسان كل أرتي هدي فاطمة بنت محمد رضي الله عنها سيدة شريفة يا كلام ديريسا يا كنصب في عن يا كقيمي بدن oo aad ogsoontihiin oo caalamka soo maray Faaduma gabadha waliba wuxuu ugu daray fiiri waa Faaduma bint Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadii ay shay xadi lahayd Muhammad wuxuu ka goyn lahaa gacantu ka goyn lahaa wallahi gacanteedan jari lahaa buu yiri kaashishe ee iga fog sidaan gacantiisa u jarayo ayaa gabadhayda oo aan ugu jecelahay ilmahayga oo dhan ugu jeclaa run ahaantii ayaan iidan gacanta uga goyn lahaa dadku waa ii sameeyeen naxariista taasay ku jirtaa cadaalad oo dhan iyadoo ku idiliyahay ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الله أكبر يا عدالة dadka sidaad ku kasban karaysaa cadaalad ayaad ku kasban karaysaa dawladdaadu siday ku istaagi karaysaa oo ay ku dhismi karaysaa marka la arko cadaalad inay ku shaqeynayso cadaaladda wax walba ku idil yahay raaxo oo dhan ku idishahay nolol oo dhan ku idishahay qalbi wanaag oo dhan ku idil yahay dadkuna ay ku hoggaansamayaan war dadka waxa deeqi karaya uurkooda deeqi karaya dadkan kala tagay isu soo celin karaya oo ay ku raali noqon karaan ideelkooda ay raaciyad ku noqon karaan waa maxay sam'an wa ta'an wa waxa way cadaalada weeyaan cadaalada ilaahay hatuso inagoo hayna wada tuso khaasatan madaxdeena mas'uuliyiinta Allah tuso Allah ku duwo ku iraacan Allah ka yeelo walaalayaal ibn Taymiyyah wuxuu leeyahay rahimahullah Allahu ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة لا إله إلا الله إلهي وحو أقرقارا أو أقرب سياه دولة عدالة كش قينيسة عدلي كش قينيسة ومد أي مدحض أتهي دولة أتهي كما مليس السيدة إسلائك أنا قريبين إن أدير وحاس أنا جرين سيدا داعدة أوضح حكوميسا دتك يقول السميهن حبأها الدولة قالها إلهي كفوقاتي حبأها دولة دا عدالة دا إلهي كد دائمنا يا محاوى عدالة إن الله لا يضيع أجر المحسنين كوان إحسانك أي سمينا يعني إلى عدل وإحسانه الدونك إلهي كسينا يا وكوارنا يا نبض كسينا يا وقرقاري ما يو إلهي الدولة هداني عادلة أهين حبأها الدولة مسلمة أهي الله مسلم بان أهي كلي إلهي كو مقرقاري مسلم كوحيابوه وتعدلي كمدا واكنا به عدالة الرسول كأنه صلى الله عليه وسلم وإن بريو سيدا أمد اللغو نقو يا
haddii Faadumo ay waxadi lahayd radiyallahu anha gacantan gooy lahaa buu leeyahay hadhoho madaxweynuhu waa inuu yiraahdaa haddii wiilkayga waa wiilashiiska ugu jecel yahay uu waxado dhabna ay ka ahaataa hadduu waxdo gacantan ka gooyn lahaa wasiirku uu yiraahdaa haddii gabadhaydu ay waxdo gacantan ka gooyn lahaa يا رئيس البرلمان كسيدو كله أي مسؤول والبا عدالة دتك ومسؤول كي هاي وإنه كنا قاتاسا مالك قيامة لقى حسابنا ورأن أجانو وما هي مسؤول إن أن مسؤول نقولنا لعيانكم بحنا ليك بنكم ضادنا يا laabab walaalaheena aanu orxumo ayaanu ka buuxinaa oo aanu xumaan ku gelinaa oo aanu ma aragtay aan cudri balaayo ku abuurnaa xiqdi aan uga buuxinaa waa inaan noqono mas'uul waa maxay war kursiga la fariisanay kaliya mas'uul macnaheeda inta aad xukuntid ee ku hoos imaado oo dhan ayaa maalinka qiyaamaha waxay soo baxayaan iyagoo faraq ku haysta mid walba uu ka rabo xaqiisii adduunka cadaalad ma u sameysay كورما نينك 10 مليون أما 15 مليون أو صومالي مدحوينه واه كورما أفر سنة هدنا أو وحى بيره كصباحي إيزكوينكي إيو ماركتاي صدقدي إيو معاويندي إيو خيراتكي إيو شدالكي إيو دي هولها وحنا دن إن دود جارسيسيد شنو 10 مليون بالغار ربا مدول بحقي سينا سيسيد قفل بحقي سينا سيسيد كان جرن إنا كور قبتيد كان دبن إنا كور قبتيد كان أوان كيد عدريسن سيدو كله كان ماركتاي اسك عيال سوق اسك جوجي مسكين كه أنا وحبها هيسين سيدو كان غوريغا لا كان جاجيسن كان دباتيسن كان نحسن كان اسبارده ما لو دغتا كان لا ظلميو وحاسو دن inaad ogaatida laga rabaa Allah waa mas'uuliyad culus wallahi waa mas'uuliyad culus shay aad u adag weeyaan amaanada hal iska ilaaliyo war mas'uuliyada iyo xilka loo ordayo hal iska ilaaliyo man kana yarju Allah wal yawm al akhir warqofki ilaahi iimaanka qiyaamaha ka baqayo iska ilaali walaalayaal oo kaalay maalinkan aad arkaysaan waxa badbaadaya waa maalinka qiyaame waxa la soo saaraya imaam caadil ah adduunka caadil ku ahaa madaxweyne caadil ah boqor caadil ah mas'uul caadil ah ayaa imanaya maalinka qiyaam laakiin sidoo ku imanaya وسكدوان سيدا خلائق ذا كلا يكو إيمانيان وحوكو إيمانيان منابر نور منبر نور يسوغو سارن كرسي سي أيا لوق مرحينيا او كفرديي ايو دادكو كما مولي جري او عدالة او ديجي جري او كسيمي جري او ماركتاي دي او مدو كدقي جري سيدا هاقاكسن يا شريعة وافقسن مركاسا isagoo nuur ah xaquu imanaya oo fariisanaya todobadii buu ku jiray ogow waa todobadii loo haraynayo maalinka qiyaama ee har kale aanu jirin harka ilaahay mooyee todobadii buu kamid yahay laakiin waa ka duwan yahay maanta waa nuur isagii waa nuur minbarka uu ku fadhiyo ama kursigiisuna waa nuur xaquu fadhiya an yamiinir rahmaan waa ninka ilaahay ugu dhoweeyaan إلهي مدك تيسو فرديا لبض الدنعب ومدك الله سبحانه وتعالى الله أكبر يا إلهي وأنك وقدو خلائق ضوضن إلهي سو وقدو الله أكبر يا ننك إستقى وإمام عادل محوف الدنواي يوشقين يأدونك ننك إمامك وأنك أقصر يددك أوردن إما ضحضة وحدلي كرة وحدعي كرة wax dulmi kara wax doonana cafin kara waa ninka ugu dambeeyay taladu ay ka goodo adduunka maadaama dadka oo dhan uu wadanka uu asaga mas'uul ka yahay ciidu ka baqaya male way uu sameeynaya cadaaladda hantidan oo dhan muu asaga bangiye ku dhisto oo muu meel geysto oo muu dhaco oo muu reerkiisa siiyo way uu cadaalad u sameeyay cadiyu ka baqayay ya ma qof la qabsan kara jiro wariya maxaa sidaan noo yeeshay dhihi karaaya مجرو عيد قبسن كريسا ملها عيد كدب قايلين كريسا ملها ولا يخاف عقباها عرت هذا كبقي مايو وعيد وحده كرتمل لكن يكبقي الله كبقي سبحانه وتعالى يا وحكى لي وكبقيو عدل كانوا سمينيي عبسي وكقب إلهيسا يمالن كان إن لو دينيو حق دتك وطليو ما دام ضعفيين وين كقادن كرين هنا نقول عينين أيوغا هدين يجوا ويدين كرين إنه جرى الله ويدين يمانتا الله أكبر وبقي إلهي وشقينا ينين كان
ayaa maanta waa kaasa ayaa abaalmarinaya وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان الله أكبر إحسانك أبالكيس وا إحسان الدون كان مركز إحسان كسميسد آخر إحسان كاسد هليسا ولا عليا من كان إمام عادلة هرت عن سفين ومح إمام عادلة إمامك عادلك وإمامك أما ومدحوينها ومسؤولك شرعي إلهي كتابك إلهي كلك الضومها إلهي أنكو سعلي مركله ومسؤولك شرعك الله كتابك الله دينتو إلهي راليغا نوغا نقضي كلك الدومة الله أكبر الدومة يا سمي الله يا دومويهن الله قونان وقما وننتقن شرعي iyo waxyaabo ay ku kala baqaan lagu dhaqo ayuu u dajiyay isaga ogsoon waxa uu wanaagsan waxa uu xun sharci uu wanaagsan ayuu u soo dajiyay sharcigaas inaad ku dhaqdid baa laga rabaa marka kaasa imaam caadil ah walaalayaal ina keena idilkeen dib aan idin celiyo xogaha jidka wanaagsan ee islaamka ah aan idin kugu celiyo aan idin geeyo qarnigii koowaad ee islaamka sanadii 60aad ama dhowr iyo 60kii hijrada aan idin geeyo واجي أما عهدي عمر ابن عبد العزيز أن إذن جيو محاوعي ما هيو إمام كله أو نلمده أو أن تسالوا سقط عدلجة محاوعي وحائل ذين هدان له عمر بن الخطاب أبا بكر عثمان علي وحد لذين وصحابة الرسول كما نجا جارين قوا لكن وكدم بيتابع بوها عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز خليفة كان راشد كأه لبا سنة يبر أيو حكومي دولة دي لماد أما خلافة دي إسلام عالم كهورتي وحاكبو حي ظلمي أو أي دولة دي أمويين تأستيقى كهوريسي المأذير دي أي كبو حيين عدالتكم ما ينخي جرين انت بضن dadka waa dulmana dadka wuu dhibana dhulal badan far badan baa la kala dhacay guriya la kala dhacay hantidoodii sida la rabo ugu meyn tasarrufi jirin bal hantida dawladda iyo baytul maalka wuxuu u furnaa jeebka boqorrada iyo jeebka ilmaha boqorrada waa Umar ilma adeeradii qof walba sida uu doono uu isticmaali jiray bangiyada dawladda Umar radiyallahu anhu mar alla loo markuu yimid Umar ibn Abdul Aziz waxaa hor yaala arrin aad u adag ummad dhan oo wada qaylinayso wada dulman yaa dulmay ma foga waa ilma adeeradii warma wuxuu ka bilaabaa ilma adeeradii buu ka bilaabaa oo waxyaabaha faraha badan ay qaateen oo ay dhaceen ee bililiqada agtooda yaallo ka qaada ma guryahoodu ka bilaabaa ma beerahoodu ka bilaabaa ma mushaharada ay qaataan ilma adeerada reer boqor oo aad ku faraha badan buu ka bilaabaa مواليدي مدحدي برسابيدي بو كبلابا goboladii ka buuxiyay daafaha caalamka dawladda islaamka ka buuxiyay dulmiga si doona wax u dhacay oo iyagana reerahoodii de ka biila baytul maalka miyo ka bilaaba xaqu ka bilaaba Umar caaqil buu ahaa caaqil buu waligiina uu ku taamay arrinkan inuu gaaro Umar wuxuu ka bilaabayaa nafsadiisu ka bilaabayaa cadaaladda wixii dhul uu lahaa ee sabar loogooyin uu lahaa iyo wuxuusan u lahayn oo dhan guryihii faraha badnaa ee uu lahaa ee la siiyay oo dhan ayaa wuxuu leeyahay ideelkood ha loo celiyo baytul maalka dadkii wada maqlaya waa la rumaysan la yahay walaalihii imaadaradii waa yaabahiin xali Umar miyuu waa maxay wuxuu leeyahay kulli wuxuu yiri waxa lagu siiyay dulmi xaq uma lihi waxaan ahay fardi kamid ah afraad muslimiintan ahay sidee u noolaadaan waa ina u noolaadaa ha loo celiyo waa goorma waa isagii madaxweyne ogow isagii boqor weeyaan imaam caadil ah waxa ku soo haray Umar faraanti yar oo dahab ah oo uu ka helay qaniimo laga keenay maghrib baa xoolo laga keenay xoolaha marka lama qaybinin muslimiinta ayaa iska leh laakiin reeraha isticmaalayay Umar baa marka faraanti laga siiyay عمر فرانتي ليسي وحير غنيمتي وحن كهلي مغرب حقنا وملي كلغي إنان قاطو محاوعي وحن ليسي كهور انت غنيمتي لقيبين إسلام كاسكالي بيت المالك هلقي هلا قضدتك هلو إيبيو هلا سيو عمر وكفر حشي حاسكي سيبو كحجينا يا فاضمو اتقا وحوليه كسر أحبح قري يا إما قريا ذهب كأه
waxaan qasriga ah boqortooyada ah gurigan ama aniga mid dooro wallaahi cumar iyo gurigan iyo faadumo inaanu meel wada deeqaynin abadan mid dooro aniga ama guriga waxay tiri kan waa helay haddana waa helayaa cumar xaggeen ka helaa cumar bay dooratay baytulmaalka lagu wareejinayaa yacni hantidii ayan lahayn cumar iyo xaaskiisa idaylkood waxay ku wareejiyeen baytulmaalka lagu wareejiyey cumar raximahullah bal eeg wuxuu ku xijinaa ilma adeeradii buu guryihii iyo boosaskii iyo beerihii oo dhan buu ka qaadayaa dhib fara badan kadib haddana wuxuu ku xijinaa mushahaaradoodii ilaa markii dambe ay eedadad usoo dirsadaan oo ay erge fara badan ay soo diraan oo kulli wuu ka wada diidaya mar walba loo yimaado wuxuu ku dhahaa war u shaqaysta sida shacabka kale u shaqaysta idinka oo ii dhow oo ilma adeeradaya waxaad la mid tihiin kaa ii fog wixii aad shaqaysataan ee aad maaragtay u dhididaan waad leedihiin sida kuwa kale ay u leeyihiin waxaana lidinka nuqsaamin maayo waxaana lidinkugu kordhin maayo cuna dhididkiina allahu akbar maalin maalmaha ka mid ah cumar wuxuu ku wareegi jiray suuqyada isagoo eegaya qaabka loo nool yahay qaabka loo ganacsanaya raacyada sida ay maaragtay yihiin xaaladooda ayuu roondu ahaa habeenkii ma seexan jirin maalinkiina sidoo kale ummadaas u dhexgeli jiray oo uu ku wareegi jiray oo uu ogaan jiray kooda daciifka ah kooda xanuunsan kooda dhiban kooda musaafirka ah kooda baahan kooda wixii oo dhan cumar maalin maalmaha ka mid isagoo daabadiisii saaran oo suuqii dhex maraya ayaa nin wuxuu arkay cumar ibn cabdilcaziiz khaliifkii muslimiinta wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin waxaan maqlay inaad tidhi qofkii madlamo laga haysta oo uu xaq ka maqan yahow u imow xaqaagii habuu yidhi waan idhi wuuna yidhi cumar maalinkii ugu horreysay xukunka u qabtay ayuu yidhi ciddii dulmanow ciddii dhibanow ciddii xaq uu ka maqan yahow u imow xaqaaga maanta waa maalintii cadaaladee tii buu maqlay isagana wuxuu yidhi cumar ha waan idhi haddaba waxaa kuu yimid nin miskiin ah oo dulman weliba kaaga yimid meel aad iyo aad u fog oo waa intee waa yemen waa sanca ama cadan ayuu ka yimid wuxuu yidhi wallahi meel fog baad nooga timid cumar markii hore wuxuu saarnaa daabadiisa wuu ka degayaa intuu ka dego ninkii weji ka weji foolka fool buu u hor istaagayaa meel fog baad nooga timid buu yidhi waa maxay danahaaga wuxuu yidhi dhul baa iga maqan dhul baa layga qaatay dhulkii ayaan rabaa in la ii soo celiyo waxa ka qaatayna waa un dad oo qaraabada ah waraaq buu u qorayaa cumar wuxuu yidhi ma xukumi kari hadda laakiin warqadan aan ku qoro u gee waaliga ama bara saabka gobolka u gee duqa magaalada u gee isagaa kaaga qaadaye muxuu ku qoray wuxuu ku qoray ninka warqada sida ee ku saxiixan hadduu kuu yimaado fiiri xujadiisa iyo caddayntiisa iyo sabarloogada uu kuu keeni doono fiiri hadduu yeesho sii xaqiisa ninkii wuu farxay ma ahayn wax uu sugayo faraskiisii buu fuulay markuu dhaqaaqi rabo uu yeeray kaale buu yidhi kaale meel fog baad nooga timid kaale waxaa laga yaabaa meesha aad nooga timid ee yemen dharkan aad qabtid isagoo cusub baad soo xiratay oo aad soo qaadatay maantana waa kana wuu wasakhoobay wuu jexjexmay wuu dhammaaday tacab fara badan baa ku gaaray sahay fara badan baa kugu soo baxday noqoshadaadana sidoo kale sahay kalaad u baahan tahay kharash ayaa kugu baxay soo maadaama kharash uu kugu baxay waxaa korkeenna ah in aan kuu celino kharashkaagii markaasaa loo xisaabiyey 15 diinaar ayay noqotay 15kiina waa kanaa mid ballan iiga qaad fidi ayuu yidhi arrinka isaga u sheeg dadka oo dhan oo waxaad tidhaahdaa war qof walba oo xaq uu ka maqan yahow go and back baa lagu siinayaaye ha wahsanin u taga cumar meel walba oo aad joogtaan deen soo qaada haddaad rabtid tigidka u imaa cumar go and back lacagtaada xisaabo waa lagu siinayaa sidaa muxuu yeelayaa in aanu jirin nin madluum ah oo dib u dhaca oo wahsada oo waaya kharashkii uu ku imaan lahaa si xaqiisa loogu celiyo cumar heer uu gaaray fiir radiyallahu anhu wa khaliifkii shanaad cumar wuxuu kaloo kala gooyay jeebkii dadkii mas'uuliyiinta madaxda reer bani umayya iyo baytul maalka jeebkooda xaguu u furnaa hoos uu ka duleelay
gacanta la gelina bangiga loo dhacaya wixii la rabaa laga soo qaadanaya bimacnaa waa gurigoodii waa khasnadoodii waa dukaan iyaga iska biishaan ayuu ahaa baytul maalka wax walba oo la keeno iyaga qaadan jiray Umar wuu kala gooyay wuxuu kala gooyay maalin maalmaha kamid ah malab ayuu u baahday وقضي سو قضينيا ملب برادي فاضمو يمد ملب ما هيسا فاضموي ما يتري ودماده مر بحطو دماده محو سميه عمر واسكا لابتي فاضمه لبا جني بي قادي يعني لبا دينار اي سو بخيسay waxay u dhibtay qaadimkii orday tir orod Umar maanta wuxuu u baahan yahay malabe orado soo gad hase Umar kama soo gaarsiin kari qaado gaariga boostada qaado waa boqoradii Soomaaliyeedna maadaama isaga boqor uu yahay waa boqoradii waa madaxweynaha iyo xaaskii madaxweynaha qaaday tiri ana mas'uulka wadanka dhan ya faraska qaado faraska bimaana gaariga boostada maanta yaalo way qaado orod faraskii buu markiiba qaatay daqiiqad waa loo keenay Umar oo hadda muusan ooline malabkan intuu dhadhamiyay malabka macaanka badan xagee laga keenay xal yiri hadda lagu soo gaday oo seel iiga soo gaarsiiyay gaarigii boostada muxuu noo qabanaa anaga gaarigan muxuu noo yaalaa soo anagu kuma tasarrufeena gaariga ya gaariga soo gaarigeennii maaha kan ku adeeganina reerka loogu adeegayso maaha waa gaariga dhamay boostada ogow faraski yani macnaha ma gaari waa yaal laakiin waagaas faras baa joogay oo booska gaariga ku jiray wuxuu yiri ma faraskii dadweynaha loogu adeegayay waraaqaha loogu keenayay macluumaadka loogu soo aruurinayay uu u xirnaa baad Umar shahwadiisa aad maanta u adeejiseen oo aad u isticmaasheen wadiga haleyseen buu yiri malabkaygi qaad buu yiri malabkan qaad darsi buu rabaa inuu siiyo dadweynaha qaad buu yiri malabkan iibi markaad iibisid lacagta soo celi cafash ugu soo gad caws si waa daaliseen فرسك واحد كل دالسين عمر شهوديس إن عمر كل رجسان الله أكبر الله وزير رضا هم مخلان قفل بو مسؤول هو قاعد إنه يهي خادم إنه يهي إنه خدمين يو شعب كان مساكين تن إنه خدمين يو بابورتن فرح بدنا وزارة الباهر تالا إن لو أذيع يو شعب كوان لو أذيع إن حاسس كود عيال كود إن أنا وزير كيرير كيسو أنا كنت تصرفي كرين أنا كو استعمالي كرين ده هذا خاص كأن أنا استعمالي كرين بل قبله إن أنا استعمالي كرين حاسس استعمالي كرين المسكول لو جين كرين gaariga dawladda gaariga wasaaradda gaariga wakaaladda gaariga iskuulka inaanu xataa maamulaha isticmaali karin aan danihiisa khaaska aan u isticmaali karin hadduu u baahdo maamulaha ugu hooseeya madaxweynaha ugu sareeya hadduu u baahdo suuq inuu ka soo adeego in uu transport inuu qaato inuu jeebkiisa ka isticmaalo ama gaari isaga uu leeyahay xaq uu leeyahay inuu ku soo isticmaalo haddii salaanta u baahato suuq inay aado inay isticmaasho gaarigeeda ama lugteeda ay isticmaasho xoogeeda xalaasha inay isticmaasho waa in kan dhow iyo kan shishe mas'uulku waa inuu u sinaadaa وإنه أستنادا ما دام كشيشة جارج وأنا استعمالي كرين سد الدون وأنا استعمالي كرين المسكول وسون كوجيسن كرين سوق وسون وسو أديجن كرين كنت مشلين كرين كان وزير كان إحاس كوزير كإلمه وزير كان واسدا عدالة سياسية كجرتا إسلام سياسة نبريا فهم كأي نقاضنا والله واحد شعب أو ربايد إذن كقول نقنية أو قلبي جوضو أي سينيان أو أي هجانك إذن كقول ليبنيا والله واسدا ده كان لكري لا يا قيلنا يا مربط دنك برغنا يا مربط دنك برغنا يا اسكسو علين لا ذهن وحكيلية سو علين كرايا عدالة داويان عمر واكا قفك أركي يا عمر أركي يسوي علين يا مالبكين أو لعك كسو بدله عاوز كسو قدية الصين يا فرسكا محوق سمينيا يا هدي سجيب نفسدي سي وكم بالله عدالتي محو سمينيا وixii ka hooseeyay iyaga awlaka waa in cadaaladu ku dhaqmaan wadadu u jeexay oo bay marayaan Soomaha hay hadii laakiin wasiirada ay noo jeexaan wado gaarigii la keenay iyo wixii la keenay iyo hantidii la keenay macmacaankii subagii la keenay reerkooda haday ka bilaabaan hadii ummadaasi ummada dhaqi kartaa ma noqonaysa waan idin sheegaya ana ugu horeeyay ma dhaqi kartaan ogaada khal bahalkum shacabka waxaad ku dhaqi kartaan maxay
شعبك waxaad ku dhaqi kartaan cadaalad taasa ina wada deeqda waa tii lagu soo dhaqay rasuulka ay ugu hoggaansameen adduunyada oo dhan ay ku raaceen ilaa iimaanta ilaa qiyaami saaca jannadiina aynu ku tageeno maalinka qiyaamahan aynu ku tageeno annagoo waliba saaran xagee annagoo saaran manaabir nuur ah aynu ku tageena waa boos fiican jagada aad fuusheen cadaalad ku sameeya si aydan uga qadin jagada si aydan halka u waayin kursiga nuurka ah an yamiin الرحمن wallahi fursad weeyaan maanta kuraas baad saarantiin maanta dad malaayiin ayaad u talisaan war qof walba ha ku tashado oo mas'uul oo imaqlayo ha ku tashado halka maalinka qiyaamaha an yamiin الرحمن in qof walba uu minbarka nuurka ah inuu ku fariisto harka ilaahay maalinka har kale aanu jirin kursiga maanta aad saaran tahay adaan kula hadlayaa wasiirka adaan kula hadlayaa ra'iisul baarlamaan adaan kula hadlayaa maaragtay wakaalada weyn adaan kula hadlayaa agaasimaha adaan kula hadlayaa maareeya dadkeena mas'uuliyiinta la hadlayaa uu arinku ka go khalaa'iqda ay hoos fadhido ay maaragtay idaylkooda ay idin wada fiirinayaan idinka mas'uuliyiinta idaylkiin baa idin la hadlayaa kuraasta uga faa'iideysta in aad u bedeshaan منابر نورة عن يمين الرحمن في ظل عرش الرحمن إن هذا بدلتان والله ما أنت فرصة بهرتينا هتضيعنا فرصة دان إمسا مسؤول صوت ضيعي أفر سنة وأفر سنة كلا ضيعي وأفر سنة كلا ضيعي وأفر سنة كلا ضيعي وهتضيعنا مال هداد مسؤول نقطان مال كل ما يكون بالله وكل ما عدالة سئاد مالك قيامها وقوء مادان كراستا منابرتا سنورك عن يمين الرحمن إلهي هوسكيسة ولا ليال حق الله إذن كدو عدالة الله إذن وافجيو إلهي عدالة إذن وافجيو إذا لكين مسؤول والبا وانو جعل لهي قف والبا مدحنا نقضى وانو جعل لهي وحانو كل يرقلنينا إنو دائما عدالة إنو حكسد عدالة ولا ليال هو إمام مالين كالي هدنا ويسيسن جري دائما ويسدو دائما جري خادم كيسة ayaa wuxuu ku baraarugay waqti qabooba ah in uu bal u soo kululeeyo oo uu ka farxiyo amiirka markaas uu soo kululeeyo weysadii Umar wuu ku weysaystay weysadii oo kulul markale wuu ku weysaystay mar saddexaadkii wuxuu yiri war biyahan kulul dadka oo dhan ma loo kululeeyaa oo ma sidaanay u weysaystaan mise waa kaliga oo xageed iiga soo kululeysaa laga yaabaa madbaqii muslimiinta inay iigu soo kululeysaa wuxuu yiri ha intaan kale ku soo kululeeyaa wuxuu yiri waa iga haleysay cibaadadeedii weysadeedii oo iga haleysay mid kale uu yeeray qaad buu yiri biyahan intii cishe ee loo soo kululeynayay bal xisaabi inta qoriye ee ku baxaya ee biyaha kululeyn karaaya Umar wuxuu rabaa inuu gudo jeebkiisa inuu ka bixiyo maxaa wacay mar raba maalinka qiyaamaha isagoo lagu dhagan yahay oo xaq dadka raaciyada xaqoodii isagoo iyagu ay ku dhagan yihiin oo uu dhabarka ma aragtay uu saaran yahay inuu ilaahay la kulmo mar raba Umar ibn Abdul Aziz baytul maal soo isaga ilaalinay fiiri xoolaha dadka soo isaga ilaalinay fiiri shacabku uu talinayay waraynu ka fogaano xoolaha dadkeen aynu ka fogaano aynu ilmaheena ka fogeyno guriyaheen aynu ka fogeyno dadka xaaraanta cunaa waa ogsoontiin maalinka qiyaamaha si ku soo kulmayaan waa lagu soo xashirinaya xalaqooyin horaan ku soo qaadanay inaanay xaaraanta fiicneen waxa go'aya nafsadaada hadaad xaaraan gelisid gurigaaga keentid ehelkaaga xaaraan soo gelisid xaaraan hadaad u dhawaatid waxa go'aya xiriirkii adiga iyo khaaliqii aad lahaydeen hadaad ilaahay ka furatid oo xarigiisii aad goysid de shayaadiinta ku qaadanaysa maalinka qiyaamaha halka shayaadiinta la geeyo baa lagu geenayaa sida lagu soo xashrinayaana waa ku soo sheegay oo xalqooyinka hore ku soo qaadanay cadaalad aynu xigno cadaalad aynu xigsanno mas'uul walba qof walba war nafsadeeda ugu horeysa iideelka inta maqlayso dhan madaxweynaha uu ugu sareeyo aad baan idin jecelahay walaalayaal cadaalad aynu xigsanno si iideelkeen manaabir nuura maalinka qiyaama an yamiin الرحمن ilaahay noogu soo xashriyo inta ayaan ku soo gabagabaynayaa أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام.